Soomaaliya waxa ay wajahaysaa sanadkan 2016 doorashooyin baarlamaan iyo mid madaxweyne iyadoona dalka ay ka jirta xaalad abaar oo qalafsan waxaana xilligan dadka Soomaaliyeed ay la daaladhacayaan abaarta saameysay iyadoona ay soo ifbaxayaan musuqmaasuqyo waaweyn oo lagu kacay taasoo ay sameeyeen madaxweynaha Soomaaliya iyo qoyskiisa waxaa jira boobka hanti qaran taasoo soo socotay ilaa bishii Sebtembar sanadkii 2012 waqtigaas oo xafiiska ugu sareeyay dalka loo dhaariyay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud qoyska madaxweynaha Soomaaliya ee waqtigiisu dhamaaday ka kooban walaalihiis iyo xaasaskiisa ayaa sameeyay hantidii ugu badneed 4 sano la soo dhaafay waxaana dadka Soomaaliyeed ay si weyn u xasuustaan qoyska madaxweynaha oo xilligaas wajahayay nolol adag ka hor intuusan noqon madaxweynaha dalka ugu horeyn Cali Sheekh Maxamuud iyo Xuseen Sheekh oo ah walaalaha madaxweynaha Soomaaliya ayaa si weyn uga taajiray hantida ummadda waxaana ay sameysteen guryo ay ka dhisteen Muqdisho iyo sidoo kale ganacsi xoog badan waxaa la xasuustaa Cali Xaaji Iimaan oo kamid ah dadka ku dhaqan magaalada Muqdisho oo dhul uu ku lahaa degmada Cabdulcasiis laga siistay $600,000 waxaana sidoo kale wali dhagaha dadka Soomaaliyeed ka sii gooxaya in ganacsatada iyo hay'adaha ka howlgala Muqdisho lagu baado magaca madaxweynaha Soomaaliya Cali Sheekh oo hadda haysta hantida ugu badan ayaa ka hor doorashadii madaxweynaha Soomaaliya waxa suuqa bakaaraha uu ku lahaa carwo lagu magacaabo Day to Day taasoo lagu geli jiray qalabka carruurtu ku ciyaaraan waxaana carwadaas lagu qiyaasay hantidii ay ku fadhiday $10,000 Cali Sheekh Maxamuud hadda waxa uu guryo dabaqyaha ka dhistay wadada Muqdisho ugu qaalisan ee Maka al-Mukarrama waxaana sidoo kale dhulal badan uu ku yeeshay degmooyinka kala duwan ee gobolka Banaadir shirkado gaar loo leeyahay ayaa gacanta loo galiyay hantida qaranka iyadoona goobo kamid ah dhulkii dawladda lagu la sheeray shakhsiyaad ganacsato ah goobaha sidoo kale dadka shacabka lacagta looga qaado waxa kamid ah garoonka diyaaradaha ee Aadan Cadde Muqdisho taas oo qof walba dibadda u socda ee ka dhoofaya Muqdisho laga qaado $11 halka dadka u kala dhoofaya gobolada dalka laga qaado $6 ugu dambeyntii boobka hantida qaranka Soomaaliya loo geystay 4 sano la soo dhaafay waxa ka badan inta kale ee qarsoon ee dhulalka laga qaatay ee ka tirsan shacabka Soomaaliyeed kuwaas oo hay'adaha garsoorku si sharci darro ugu xukumeen